waxaa xukuumadii hore ee madaxweyne Siyaani lagu eedeeyaa in ay iibin jireen dhulka danta guud laakiin idinka waxaa laydinku eedeynayaa in aad dadkii shacabka ahaa dhulkii ku haysataan weliba dhul ay iyagu sharci u leeyihiin maxaa sababay arrimaha dacwadaas waa la bilaabaya saacid wasiir halkaa waxaan ku hayaa fayl koobigiisii guri sharci oo la dhisay sanadkii 2013 7 sano ayuu gurigaasi dhisnaa guryaha kale oo la midina iyana way guryo dhisan oo sharci haysta laakiin maanta waxay ku jiraan dhulka ay ku doodayaan ilmo biixi cabdi ee madaxweynaha qoyskiisu ay ku doodayaan muwaadinkaas iyo muwaadiniinta kale la mid ah ee 7 sano guryo ay dhisteen maanta dhulka ay ka dhisan yihiin lagu haysto maxay uga qaban weeyeen marka laga hadlayo iyaga wala daba gala uu ka maqan iska daay arbi dadka dhacay baa la firaa arbi dadka dhacay yaa la firaa tabu oo wala shaxtiga waa dhacay wala noo boo shaxtiga yaayo uu dhacaya maanta iskuul baa la dhisayaa halkee laga dhisaa haddii uu area sheeganaya 1 hectare oran mayno hectare hebel baa waa ka dhisanaa laakiin saacid wasiir anigu waa tagay goobtan bariga Hargeysa ku taala dadkii waxay ku tusayaan waraaqihii oo sharciga oo ay sitaan oo dawladdu siisay oo ay dhulka ku milkiyeen qaar way iibsadeen qaarna iyaga horu lahaa oo loo sharciyay marka sidaa tahay miyaanay habboonayn in aadama ka iibsataan ama dulbadal siisaan meena ka qaadaan baa xuquuq waa qofka muwaadiniin inaan ka qaadano sabab hadii ay reer abdi aad ugu celcelis waxaan maleynayaa reer biyo cabdi gurigii la dhistay ee imika dhisan ee lagu kala tegey wuxuu noqonayaa un xeer Soomaaliya in lagaga dhaqmo mana dhaafayaan ma filaya sheegay inay diminayaan meheradaha soo galay wadooyinka sidoo kale meheradaha ganacsi aanu banayn sharcigu laakiin ay kaalmeynayaan dadka danyarta meheradahaas laga duminayay maayirku arinta ka hadlayna wuxuu yiri qof muwaadin xaq u leeyahay inuu caawdo marka su'aasha ku soo noqdo horta maamulka degmadu oo aanu waafrinta ku hogaamino waxaanu qaadanay istaraatiijiyad oranaysa magaaladeena inay horta magaalada kale ka duwanaato hadday tahay nolol iyo hadday tahay qurux iyo hadday tahay horumar waxaan habeenka maalin ka shaqeynaa qofka reer Berbera ah adeegyadiisa asaasiga ah ka shaqeynaa su'aashaada markaan u soo noqdo waxa iska hor imanaya quruxdii magaalada iyo duruuftii danyarta qayb ka mid ah marka dadka danyarta ah ee ku shaqaysanaya degmada Berbera gudaheeda horta ma wixii iyagu ay deelqaaf iyo xadaaf ay la yimaadeen mise dhibaato kale oo aanu haynay iyo culays aan ku haynay waxay deelqaafkii sameeyeen baan leenahay si magaalada lagu qurux banaato adiguna meheradaada kugu wanaagsanaato gurigan dhisan ee kharaabada isu bedelay ee wajahadiisa sanadada ka dhistay sanadada ka qaadaan leenahay muwaadinku waxa uu kiraysan gurigan u dhabarka ku hayo guriyahan inaga kharaabay gurigu wuxuu naga doonayaa istambar wuxuu naga doonayaa rinji wuxuu naga doonayaa geed hortiisa lagu beero bidixdii naga doonayaa iyo businesska iswaafaqda Berbera maanta laba digino weligeed baa lagu noolaa halkaa waxaan leenahay waa laba qaybood qayb guriga uu kiraysan qayb guriyaha ma kiraysan qaybta guriga uu kiraysan waxaan leenahay guriga ay ku kiraysan yihiin soo dib u gab waxaan ku ogolnahay structure-ka dawladda hoose waxay ogashahay 2 mitir oo qorshaha magaalada waafaqsan oo dawladda hoose ku dhigto oo baranda oo furan oo shuruudo leh wixii ka hor yimaada mar walba la duminaya